waqti wacan iyo goorsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii caalamka iyo alool media qodobada aanu idiin hayno waxaa ka mid ah haddii alla eedmo turkiga oo reer yurub u sheegay in aanay cunaqabateen iyo caga juglan midna wax kaga qaadaynin madaxa duulimaadka sare ee yahuudda oo ka hadlay arrin fajac ku noqotay ruushka maraykanka iyo shiinaha oo mar kale loolan diblomaasiyadeed cunaha isu haysta taariikhdu waa 8 December 2020 warkana waa kii koowaad daawadayaal soo dhawaada mar kale aynu ku bilowno madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in aan turkigu marnaba madaxiisa hoos uga dhigaynin dowladaha isla weyn ee reer Yurub hadalka madaxweynaha ayaa yimi kadib markii midowga Yurub sheegeen in ay qorsheynayaan cunaqabateen ay la maagan yihiin turkiga kadib murankii dhulbadeedka Mediterranean-ka ee lagu tuunsanaa in shida ku jiro kaas oo ay isku haystaan Greece iyo turkigu Erdogan ayaa sheegay in qorshe kasta oo Greek iyo reer Yurub ay soo dhigaan aanu ahayn mid shaqayn doona hadduu yahay mid ku xadgudbaya buu yiri xuquuqda iyo lahaanshaha turkiga dhulbadeedka Mediterranean-ka ayaa midowga Yurub la jecel yahay in ay helaan dalalka Greek iyo Cyprus balse turkiga ayaa rabitaankaas ka soo horjeestay isagoo maraakiibtiisa shidaal sahmin u diray biyaha la isku haysto maraakiibtaas oo ka bilaabay hawshooda sahaminta iyo Greek iyo saaxiibadiisa Yurub oo weli ka qalinaya hadda waxaa arrintan dib ugu soo celiyay hadal haynta warbaahinta markii turkigu ka war helay in kulan dhex mari doono wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub kuwaas oo kaga wada arrinsan doona buu yiri cunaqabateen ay turkiga dusha ka hubin doona waxaa kale oo xogta turkigu helay sheegaysa sida lagu sheegay warbixin ay ka diyaariyeen warbaahinta Reuters in midowga Yurub aanay ku wada socon cunaqabateynta turkiga maadaama ay shaki weyn ka qabaan in turkigu albaabada u soo furi doono dadka tahriibayaasha ah ee dalkiisa ku sugan kuwaas oo si weyn wadamada Yurub uga dagaalamaya wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa ugu horeeyay wasiirada ka biyadiday in ay iscolaadsadaan dowladda turkiga isagoo sheegay inay muhiimad tahay in turkiga wada hadal wax lagula dhameeyo hadalkaas waxaa markiiba ka daba qaatay madaxweynaha turkiga Erdogan oo isagu sheegay in uu diyaar u yahay macquulna ay ula eeg tahay weliba in la helo xal cid kasta ka farxin kara markaasna ay habboon tahay buu yiri in miiska wada hadallada lagu soo laabto dowladda Greek oo si weyn uga naxday sida Jarmalka iyo turkigu isula jaan qaadeen ayaa sheegtay in aanay marnaba miiska wada hadallada turkiga la fadhiisan doonin inta maraakiibtiisu wadaan bay yiraahdeen sahaminta shidaalka ee dhulka la isku khilaafsan yahay siyaasadda turkiga ayaa u muuqata inay tahay mid uu ku rabo in uu kala dhex galo dowladihii isaga u soo heshiiyey waxaana si weyn isha loogu hayaa hadallada ka soo bixi doona kulanka wasiirada midowga Yurub oo loo balansan yahay inta aan sanadka cusub ee 2021ka la gaarin generaalkii hore ee ciidamada Israa'iil ahna khabiir ku takhasusay arrimaha duulimaadka cadalo iyo hawada sare professor Chaim Eshed ayaa jaraa'id ka soo baxa Israa'iil waraysi uu siiyay wuxuu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu ku dhawaaday in uu shaaciyay in ay jiraan xiriir u dhaxeeya xukuumadda Mareykanka iyo Israa'iil iyo qoomiyado shisheeye ah oo hawada sare ama xidig meerayaasha ka soo degay kuwaas oo loo yaqaano alien General Eshed oo 2011 ka degay kursiga ugu sarreeya ee ciidamada cirka iyo dayax-gacmeedyada Israa'iil oo uu ka shaqeynayay 30 sanadood ee u dambeeyay ayaa sheegay in shisheeyahani yihiin kuwo Mareykanka ay kala saxeexdeen heshiis wada shaqeyn ah iyo in aan Mareykanka iyo Yahuudu shaaca ka qaadin in ay jiraan hadalka generaalka waxaa si toos ah u beeniyay dhigiisa Ruushka General Barakovich isagoo ku tilmaamay wax lagu qoslo balse ka fiirsi leh buu yiri waayo wuxuu sheegay General Barakovich oo ah generaalka ugu sarreeya ciidamada Ruushku in hadalkani noqon karo mid ujeedo weerar laga leeyahay oo inta ay weerar qaadaan waa Mareykanka iyo Yahuudu ay ku eedeeyaan shisheeye ka yimi buu yiri hawada sare oo ay keligood arkaan luuqadna ka yaqaana tooda oo keliya arrinkan ayaa Ruushku ku sheegay wax laga digtoonaado oo xitaa hadday soo dhigaan buu yiri muuqaalo
qalbiga qofka wuxuu rumayn karaa in aan marnaba laga hoos qaadin. daawadayaal waxaanu garanay beentii ifka baa lala yaabanayay, bal cajiib hadday heerkaas gaadhay. wagaag haddana waxaynu gaadhnay qodobadii warkeenna u dambeeyey. waxaa mar kale soo ifbaxay ismaandhaafka iyo muranka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay xayiraad socdaala dul dhigi doonto 14 ka mid ah shaqaalaha dowladda Shiinaha. Maraykanka ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid uu kaga jawaabayo mid sidan oo kale ah oo Shiinuhu ka qaaday sharci yaqaanada Hong Kong bishii la soo dhaafay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hung Junyin ayaa sheegtay in Beijing ay tallaabo adag ka qaadi doonto Maraykanka. waxaanu samayn doonaa bay tiri mid ka adag tallaabadan uu qaaday Maraykanku, waxaana habboon in uu ka noqdo inta aanu ka qoomamayn ka hor. xukuumadda Maraykanka ayaa qaaday tallaabooyinkan ay Shiinaha ku cadaadinayso iyo kuwo kale si madaxweyne Trump uu u xejisto xasuustiisa uu jecel yahay in dadku ku xasuustaan in uu yahay nin ku adag dowladaha loolanku ka dhexeeyo sida Shiinaha, Iran iyo kuwo kale. waxa kale oo madaxweyne Trump daneynaya in uu ka tago alqaado madaxweynaha cusub ee Joe Biden uu la rabto, taas oo u sahli karta in uu isaga ama mid ka mid ah carruurtiisu ay dib isu soo sharaxaan doorashada dambe ee Maraykanka ka dhici doonta 2024. daawadayaal wararkii maanta waa naga intaas. haddii aanad hore nooga tirsaneen fadlan nagu soo biir adigoo mar walba wararka iyo barnaamijyada la wadaagaya akhyaartaada si aad uga qayb qaadatid horumarka Alool Media. inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa ammaan Allah.